السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu gudaha kaga jiray duruustii cashiraantii aan ku baranaynay items and services. marka darsigeena ugu dambeeyay waxaynu xareysanay ahayd inventory part baan wala xareysanay halkan baynu ku kala tagnay. marka home-ka hadaan ku dhaawano oo maartay qaybihii kale marka hadaynu soo xareysano halkii ay ku qoran tahay maartay new ama control n ba taaban karaysaa si ku fudud. control e hadaa taabano halkii uu nageenaya inuu agaabta kaga soo darsanayni. marka waxaan leenahay imika service baan ku dareynaa waxaanu shaqada aynu qabano oo service jirta shaqada baan ku dareynaa. marka waxaan leenahay waxaanu qabanaa installation wax la yiraahdo installation baan qabanaa. marka waxaan doonaynaa inaynu kuwan tan sub account u sameeyno. marka account-ka uu ku xid save no dhamarka. marka imika tan installation save income waxaynu iibina ma aha. marka waxaan leenahay income kale oo raadinaysa haduu jiro on ku xidhno waxa waa shaqo aan qabano. marka waxaan leenahay ma jiro. marka uu account-kii aad ku xidhi lahayd ee saxda ah hadaad weydo waxa jirta accounts on the fly wax la yiraahdo oo maartay marka account-kii ma haysid laakiin imika aad ku dari karaysaa. looma baahno inaan imika chart of account intaan ku laabano halkan ku soo daro new banda new marka tiraahdo marka waxaan aan qabanayna marka muxuu yahay waa installation waa shaqo yaan qabanayna. marka sales income ma noqonayso oo waxaan iibina ma ah. marka waxaan leenahay waxaad noogu xidhaa account la yiraahdo professional fee. account-ka noogu xidbaan leenahay account-kaas waana income save and close. okay marka next day marka si aynu agaabka loogu daro shaqada marka shaqada aynu qabanaa maxay tahay installation kan sameeyna waxaan leenahay CCTV baan sameynaa imiseen ku jaar kareena waxaan leenahay waxaan qaadnaa marka installation ka markaan u rakibno CCTV markaan u rakibno waxaan ka qaadnaa let's say $200 baan qaadnaa $200 halkiiba kugu xiran yahay next day marka mid kale aan xareynayna waxaan leenahay waxyaalaha kale installation kan sameeyno oo kale waxa kamid ah Windows installation midna Windows sidaan dadka ugu shubnaa imika imsaan beerawr maxaan ku jaaj gareynaa waxaan leenahay $50 baan beerawr ku jaaj gareynaa halkii saac konton baan ka qaadnaa ama marka sab account baan sameeynaa waxaan leenahay installation-kii yaa noo hoos geynaysaa tan okay baad leedahay. tan kalena waxaan doonaynaa installation-ka inaan hoos geyno CCTV-gan waxaan ka soo maray marka iyadana sub account installation-ka ugu marka service marka maxaan xareynay saddexda nooc oo service aan xareynay oo shaqo aan qabana ah halka account-ka no try kareynaya waa professional fee lacagtii wixii service-ka naga soo gala account-ka ma u raadsanayna account-ka no la soconayo wixii kharash marba naga soo gala lacagta inuu maartay price-ka inuu ka qaadnaana waa taawan. shaqada qabatay tan oo inay ahaato muhiim ma aha. shaqo walba oo qabato hadaad xataa maartay quraan saarka hadaad sameeysid service aad qabato halkan maad ka gelinaysaa. okay marka kuma sii dheeraanayno service-ka intaas noogu filan. marka inventory assembly yenu gelinaa inventory assembly wuxuu ka dhigan yahay waxa isku dhow inventory assembly iyo group taas waa isku dhow yihiin oo labadoodu wax weyn uma sii dhaxeeyo. labaduba waxa weeyaan agaabo fara badan oo hal meel ku kulmisay. imika midna hadaad doonayso inaad agaabo fara badan oo mar walba aad iibisa iyagoo isla socdo aad customer-kaaga ka iibisa haday jiraan ama agaabo fara badan oo isla socdo oo dadkan vendors-kaaga aad ka soo iibsata ay jiraan agaabaha baad hal mar wala gelinaysaa. macnahoodu ugu muhiimsan waa inta oo marka inventory waxyaalo laakiin badan ay ku kala duwan yihiin baa jira sidaad arkaysid xagga form-ka. haddaan imika inventory assembly markuu sidaa yahay group-ku waa sidan sida kale isku nooc ma aha. halku kan fursad ku siinaya inaad qiimaha aad siinayso inaad ku qorto kan kuma siinaya qiimaha laakiin agaabta aad isku darto agaabta aad xagga kaga dardarto buu qiimaha u xisaabinaya taabo qiimahooda jamcinaya laakiin kan wuxuu fursad ku siinaya inaad qiimo gaar ah u samaysato. marka waxyaalaha waxay ku kala duwan yihiin waxa la oran karayaa inventory assembly waxaad gelin karaysaa agaabaha isku xiran agaabaha markii aan kala maarmi karin hadii macnaha la soo dhaweeyo waa agaabo sidooda isla socdo. marka maxaan ku qoraynaa halkan oo kale inventory assembly-ga waxaan ku qoraynaa midna waxaan oranaynaa desktop aan computer desktop yaan iibinaa
كمبيوتر ديسكتوب يعني كمبيوتر كموين وكذا مثلا ديسكتوب كابان يبنا سب ايتم وحبا ما هيسكا صراف عقابتا ان قلقلينا مركا عقابتا وكا مارت ديسكتوب وكا مارت وكا كمسيه هاي عقابتا محا كميدا بعد ذا هاي وحا كميدا يعني موس كغسو بلو مثلا با وحا كلو كميدا كيبورد با كميدا وحا كميدا مونيتورز با كميدا شاشة وكذا مثلا maxaa kaloo kamid ah CPU baa jira hard disk baa jira marka wuxuu ku sameynayaa agaabtani mid walba intii kugu joogtay yuu isku ka darayaa halka uu ku dhigayaa marka waxaad sameynaysaa costiga ay kugu joogto halka isku ka daray halka ku qoranaysaa imika maxay nagu joogtaa $220 bay nagu joogtaa halkan sales price ka يعني انت aad ka siinaysid marka maarta agaabta computerka desktopka markuu qofku ka iibsado computerka weyn isla socdo inta ka kooban markuu qofku ka iibsado maxaad ka siisaa yani imika maxaad ka siisaa 220 markuu ku jirto 250 maan leenahay ka siinaa 30 maan ku darsanaa marka akoonkan noo taraagareynaya maxaan yiraahnaa waa sales income baan leenahay tii horaan soo laabanayna sales income imisaad haysaa imika oo anhandia imta in leeg markuu gaadha lagu sheegay desktopkaasi inuu ka badan karin hoos ahaan imisa markuu gaadhan ku sheegnaa oo dib laba dalba ku leenahay total value markaas waa suuqa dhufanaya marka waxa inventory assembly sida waa loo diiwaan geliyay isaga marka okay marka haddaad haysato desktop marka uu halka uu noo gelinaya marka isaga iyo groupka waxyaalaha ku kala duwan waxa kamid ah iminka markii reports kala joogo reportska groupka kama arkaysid laakiin kan waad ka arki karaysaa markii maadaratay agaabta ay yani bay item buu ugu soo bandhigaya groupku laakiin kani component ku jira yani groupka kaasi groupku wuxuu ugu soo dhigaya item laakiin kani magacan uu soo dhigaya waxyaalaha ugu badan ku kala duwan yahay waxyaalaha waa kamid ah laakiin xoog bay isugu eegayeen okay حاجة محمد كوسميني سيرفيس inventory assembly waan ku sameynay maanta marka darsigeena xagga nagu joogo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.